sideed iyo tobanka bisha saddexaad 2022 waxa farxad weyn noo ah inaan isugu nimaado xafladan qiimaha badan oo runtii aan isleeyahay waa xaflad aad iyo aad muhiim ah dabcan waxaad arkaysaan gaadiidka qiimaha badan ee nuucyo kala duwan oo halkan yaala oo dawladda Jaynaha ay ugu tala gashay inay ku wareejiso dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aaminsanahyna runtii inuu yimiday waqti aan u baahnayn dabcan gaadiidkan uma ahan gaadiidkii ugu horeeyay ee dawladda Jaynaha ay ku wareejisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mana noqon doono ilaahay idankiis kii ugu dambeeyay ay ku wareejisay waxa jiray gaadiid dawladda Jaynaha ay hore ugu wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii marxaladihii aan soo dhaafnay iyo la dagaalankii qolooyinka nabadiidka argagixisada ah la dagaalankooda qayb weyn ka qaatay kuwaanuna dabcan waxaan aaminsanahay inay ayaguna qayb ka noqon doonaan kuna biiri doonaan hawsha socota ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka anigoon hadalka ku sii dheeraanayn inaan u mahad celiyo dawladda Jaynaha oo runtii la garab taagan dawladda Soomaaliyeed iyo qaranka ummadda Soomaaliyeedba taageero hiil iyo hoo oo runtii aan kala go'ol lahayn runtii aan rijaynayana inay hore u sii socod doonto waxa kale rabaa sidaas oo kale inaan u mahad celiyo madaxda qaranka qaybahooda kala duwan oo inoo suurta galiyay in dhammaan waxyaabahan iyo agabkan ayaga ah maanta ay halkaan yimaadeen dabcan sabab u ah leeyahana aad iyo aad u mahadsantihiin dabcan waa qayb kamid ah dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo horumarinta hay'adaha amniga ee qaranka waxaan leeyahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dawladda Jaynaha runtii waxaan aaminsanahay agabkan baahiyo weyn oo taagnaa qayb kamid ah inuu dabooli doono marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan runtii aan wax la soo koobi karo aan ahayn in muxuu ahaa ii sheegay qalabka intaan la eg ay maanta lagu wareejiyaan ayagoo dabcan canshuurta ay ka soo aruuriyeen muwaadiniintooda go'aansaday in ay ku taageeraan dawladnimada Soomaaliya si ay dawladda Jayna waxay naga caawisaa waxyaabo tiro badan laakiin maanta arrinka halka u fadhina oo ah arrin aad u muhiim ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu xoojinayo waxay astaan u tahay saaxiibtinimada iyo wax istarka qof walba waqtigu u baahan yahay oo baahida gaarka ay hayso inuu wax istaro dalka Soomaaliya wuxuu kula jiraa dagaal argagixisada geeska Afrika ugu weyn oo ah al-shabaab dagaalkaas oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan naftooda ay horiyaasha ah waxa kaliya lagula diriri karaa inaan haysano agab nagu filan oo aan kula dagaalano agabkan wuxuu ka mid noqon doonaa agabka aan argagixisada ku ciribtiri doono haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda Jayna oo maaragtaa si hagar la'aan u keentay agabkan oo qaarkood noocyadiisa aanan hore u haysan